Puntland 23 sano oo jiritaan ah haysatay deganaansho iyo siyaasad aan hirar badan lahayn nabaduna ay ahayd mid xooggan markii ugu horeysay ayaa 3 degmo oo kamida looga dareeri doonaa 2 maalmood kadib doorasho hordhaca ama tijaaba Siciidani ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee mandiqada oo bilowgii waayihiisa xilhaynta bilaaba dhaqaajinta mashruuca dimuqraadiyadda haddana mandiqada ayaa awal hore u ahayd meel u muuqatay mid ka caagan hayaankan qardho ayl iyo ufayn ayaa nasiib u yeeshay in lagu bilaabo hanaanka tijaabada waxaana toddobaadkii la soo dhaafay ay deegaanadan u ahayd maalmo lagu tartamo qaadashada kaararka codbixinta dhageysiga yoolasha urur siyaasadeedyada curdanka waxaana muuqata in legdinka ugu badan u dhexeeyo 3 urur siyaasadeed oo si adag ugu tartamaya magaalooyinkan hanaanka isdiiwaangelinta iyo kaarar qaadashada labaduba dad badan ayaa rumaysan inaysan xawli ku bilaaban kuna dhammaan sababta ugu weyn ee caqabadaha laga dhigayo ayaa in dadweynuhu aysan wali wehelin wacyigelin iyo waqti ku filan ha yeeshee ibafurka ayaan ahayn mid aad u rajo liita madaxweyne Siciidani ayaa qardho ka dhigay xarunta loolanka markii labaad ayuu booqday isagoo xoogga saaraya sidii urur siyaasadeedkiisa ka ugu guulaysan lahaa doorashada qardho waa goobta la rumaysan yahay asal ahaan inuu ka soo jeedo waana aagga ugu badan ee ay kula loolamayaan jilib culus ay isku deegaan ka soo jeedaan 23 sano kadib hooyada federaalku waxa ay tijaabinaysaa warqadda iyo sanduuqa codbixinta nasiibkeeda halka dariskeeda Somaliland ay caado ka noqotay in lagu kala baxo codka dadweynaha daafurnaanta lagu bilaabo tijaabada 3 deegaan ayaa dhamaadka ka dhigi doonta mid lagu wada qanacsanaado isweydiimaha ugu waaweyn ee dul taagan waa ma laga badbaadi doonaa isdabamarin tijaabada ku timaada taas oo ururada qaarkood ay durba walaac ka muujinayaan dadka dhaliilaya hanaanka ayaa durba taxaya dhaliilo xooggan oo qaarkood ka dhigaya mashruuca mid fashil qarka u saarnaan kara saacad kasta halka kuwa taageersan ay u arkaan ibafur ay tahay in geediga jidka qodxahan looga banneeyo si loogu galo ugu yaraan doorashooyin ay ku soo baxaan xisbiyada siyaasadeed ee saxda ah qaar ka mid ah taageerayaasha geedi socodka doorashooyinka hordhaca iyo tijaabada ah ayaa u arka mid looga guuri doono habka awood qaybsiga beelaha ha yeeshee sida ay ururada u maareeyeen liiska xiran ee musharaxiinta golayaasha degmooyinkan ayaa ka dhigan in beel kasta kursigeeda loo xiray waa hanaan ay hore u diiday Puntland marka laga hadlayo heer federaal Soomaaliya dadka faalleeya siyaasadda ee ku sugan Puntland ayaa leh hanaanka la qaatay ee hadda sababaha 3 deegaan loo doortay waa tallaabo la xiriirta in la soo celiyo kalsoonida beesha caalamka oo rajabeel ka noqotay hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland iyadoo kadib la filayo inay la yimaadaan niyad wanaag ay dhaqaale ugu bixiyaan in la qabto dhammaan doorashooyinka golayaasha degmooyinka Puntland haddii tijaabada laga gudbo shacabka Puntland dhinacooda marka la eego xamaasad weyn ayay u qabaan inay codkooda ku doortaan cidda ay talada u dhiibanayaan dabaysha uga imaanaysa dariskooda Somaliland oo muddo dheer ku dhacaysay ayay naawilayaan in dhinacooda ka qaataan laakiin waa hayaan dheer oo aan sahal noqon doonin in doorashada xildhibaanada iyo tan madaxweynaha Puntland sanadaha dhow laga dhabeeyo iyadoo ay jiraan caqabado xagga dastuurka Puntland oo aan saamixi doonin doorasho madaxweyne oo dadweynuhu codkooda dhiibtaan ka sokow inay Siciidani u tahay tallaabadan mid guul siyaasadeed u ah hogaamintiisa haddana dhinaca kale waxaa la wadaagaya xubno ka tirsan guddiga maamulaya doorashadan oo fursado siyaasadeed ka dhex raadinaya xaaladda taas oo ay doonayaan inay loo wareegaan kalka dhow ee doorashooyinka madaxtinimo ee ku soo wajahan Puntland su'aasha aan jawaabta cad cidna u haynin ee la isweydiinayaa waa mashruuca dimuqraadiyadda Puntland ma tijaabada ayuu ku ekaan doonaa mise uu ka gudbi doonaa muddada xilhaynta Siciidani 3 degmo haddii lagu dabro mashruucu waa u fashil in la sii wadaana waxay u baahan tahay dhaqaale xooggan isnac badan oo siyaasadeed ayaana derbiyada jabsan doona labadoo waa maarayn culus oo hortaalla darafyada hadda geedigan qaybta ka ah warbixin soo wajahan waxaynu ku eegi doonaa sida ururadu ay ugu loolamayaan magaalooyinka ufayn qardho iyo ayl iyo 3 urur ee rajada ugu badan ka qabi karta inay hesho guulaysiga degmooyinkan shirkadda Somnet Export
ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada, shaararka iyo saraawiisha, kabaha, isbarbaarka bajaajyada, dawooyinka. Wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.